السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواناكسنتين magaaladii Hargeysa ayaan kasoo salaamaya magaaladii Hargeysa aan joogaa inkastoo maanta ay tahay maalintii wadani oo magaaladiiba saas ay isu qabsatay magaaladiiba waa wadani oo dhulkiiba gariiray oo cirkiiba gariiray adduunyada waa wadani maanta sida kale waa fiicanahay malaha 20 saacadood baan joogaa magaalada Hargeysa magaaladu waa cirkaas maraysa adduunyada dadkii cirkaas marayaan magaalada nuurkeeda soo baxay sheekadii ugu horeysay la sheega oo xalay toona aan qosriyay ayaan idinka sheekeynayay laba nin baa jaar ahaa baa la yiri Hargeysa magaalada Hargeysa ka dhacday sheekadani laba nin baa jaar ahaa deetan wuxuu lahaa 5 ciyaal midna wuxuu lahaa 4 ciyaal kii waxa guursaday dabeetana maxaan radaa 5 ciyaal lahaaba guursaday markuu 5 ciyaal guursaday bay gabadhii xanaaqday gurigii bay ka tagtay way masayrtay way socotay oo gurigii bay ka tagtay markii xanaaqdu soo misbisana ma aragtay haysatidna ma diinta afar bay banaysa ma macaani raali ahaw ma martad guurstay waxay tiri carruurtadii waxa gaar ah kaas qaxayso deetana ugiiso naagtaad guursatay aad la cararaysid ugiiso aan ma barka karay way yiri wiska aroostay deetana is kii afarta ciyaal lahaa gaariga arooska soo agmaray uniyo markaas uu leeyahay uniyo waa maxay arooska iyagu waa maxay arooska bisari allah war ma haysid miyaha وسمو قدون هبل كورسدي كسوحيلي هبل كي ما هبل صاحبكي ما كان اسكفر يا صاحبي دني سي غور كورسني ناقتني halkan ay gu haysataa ana halkan iska farfadhay inaan guursado way tallaayo afar bay dhashay hadda de waa iska doo waxaan noqonay inaan iska guursadaayo waa maxay naagtan halkan iska fadhiyaa bay naagti ay guursaday muxuu guursaday ay warram muxuu guursaday salidi wuxuu guursaday de gabadhii heble ee maxay haytooye ان gabadhii maad garay hebel kala tagay shanta caruur lahayd markaas uu diyaa maxaa tiraadeen gabadhu guursan ninka 15 jir baa masoo 18 jir masoo 20 jir kaas wuxuu yiri may gabaxa waru heblu guursaday gabadhii shanta caruur lahayd noocaas ahayd way haybuudi arooski baa dhamaaday gabadha ninkii waa la aroosay arooski baa dhamaaday dhag iska dagay maalintii buu ninkii waan guursanayay maxay tiyay waynaad iga soo qabshay afakii baa yiri afarta caruur lahaa nii waan guursanayay waxaan rabaa inaad ka soo qayb gashay arooski ma diyaar weey maxaa kugu dhacay gabadhaadi hore muxuu masuulay ka bax waxaas aniga maxay tuga adiga gabadhaadi de waa taan iga xanaaqday markaan guursaday gabadhan cusub guursadayo caruurtina gabadha cusub baa ay haysa way biir gabadhii sibuu kaxeeyay wuxuu geeyay meel sayluuna wuxuu yirina waxaad ka soo dhigtaa xaliidale iska soo dhig markaasuu maxay haytay tii way guriga u jid gabadhii afarta caruur u dhashay ee guriga u deganeed buu kaxeeyay hotel sayluun buu geeyay aroos buu u dhisay ninkii baa ka soo qayb galay ninkii wali ninkii wuxuu gabadha gursan saaxiib aduu iska baxay markii uu sheegin arooskii buu kaalmo xiisi noqo saaxiib oo iga soo qayb gal miswa gabadhiisi war waa maxay warinkaar kugu dhaw markaas uu xiri saaxiib dhigeyso anigu buu yiri haddaan gabadheeda ka xanaajinayo oo gabadheeda ka maseersiinayo buu yiri kolleeba haddaan gabadheeda ka maseersiinayo oo guursanayo buu yiri waxaan guursanayaa buu yiri gabadh adigu da'deedu ay tahay 12 jir waa haddaan gabadheeda ka xanaajinayo buu yiri ma fahanti laakiin gabadheedu 4 caruur ay dhashay ka tago gabadh kale 4 caruur dhashay kaga xanaaji عقلي ما كينيسو marka wax weeyaan maadaama aan guursanay mid afar leh taydi baan dib aroosiya macnaha maxay tahay ila afar mugti afarta inta ka tago afar kale uma tagiye taydi laakiin adigu waxa aad khasaartayo intaad shantaadi ka carartay baad mid shan la guursatay bal ma taada dib aroosatay shantaadi guursatay marka anigu maadaama aan hadaan guursanayo inaan guurso iga soo godo oo gabadheeda ka xanaajinayo gabadh yar oo 14 jir 15 jir adigu 15 jir iyo 20 jir inta u dhaxayso baa guursan karaa aan gabadheeda kaga xanaajin karaa laakiin haday hal dhashay xataa laba haday dhashay xataa ma ay weeydi kaga ma xanaajinay ma guursanayo bas ninkii intuu yaabay oo shoogay buu yiri oo yiri adigu ma waalantahay adigu 10 caruuraad isku raasday ma shantaadii oo ay taadi kaaga tagtay iyo gabadh kale oo 10 ka caruuraad isku doonay hadda maxaad kororsatay 10 caruuraad ku haysid maxaa baday ku galiyay aniga maadaama aan afar guursanayo gabadh afar leh taydi ma iska noqonaya afar waa ka afar mugtahay gabadh waa iska gabadh mar walba afartii magaalada Hargeysa sheekadani ka dhacday marka hadii gabadhii laga xanaajinayo xalay markii la iga sheekay xalay oo qosay wallahi magaalada ka dhacday wali wallahi beenna ma habali magaalada ka dhacday ninkii waa u fikiray wuxuu kulliba hadan gabadh guursanayo
oo aan aroos geliyo gabadha miye 25 jir ka hooseysa may ma guursanayo yiri afartaydan dib aroosiya tiina farxadii wax leeri gabadhiina waxaan ku ori awal way dhuumnaydo maxay haytay waa iska dhuumnayde adduunyada saa intay u booday bay wax kalar xataa waxay yeeratay kalarka xabxabka markii hore kalar yar wax iska caadi dib xabxabay kalarka xabxabka yeelatay way yaabtay waxay tiri adduunyada ninkay record ku jabiyay waan rood record ku jabiyay kalarkeedii xataa wuu isbedelay xabxab buu noqday way dhuubnaydee waxaan ku waxay noqotay gabigeediiba waa la yaabay waa la isu soo baxay kiina 10kii caruura ayuu ilaa abtanoosaa wala 10kii caruura tiina kaga tagtay 10kii caruur gabadhi kale isku haysa qaylo iyo wareer iyo qarrac buu doontay iyo caruurtii maalin hooyadii baad naga furtay markaas noo keentay mid kale afar wadataa afar anago ma 5 aad maxay timid mid kale 5 wadata noo keentay 10 baan isku noqonay aab waxbaad waashay marka arintaas ayaa hargeysa xarit hore la iga sheekeeyay idinku arrintaas ka warama